kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada fagaare production aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Cabdi Xaashi iyo Mahdi Gulled oo isku khilaafsan cid soo xulaysa xildhibaanada gobolada waqooyi xilli qodobkan uu noqday kan ugu adag ee la isku hayo shirka madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada qaramada midoobay oo shaacisay xog ku saabsan weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen xabsiga dhexe ee Boosaaso qodobada kale ee wararkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid ah sidee ku dhacday in si sahlan xal looga gaaro arinta gobolka Gado oo ahayd mid ugu daran ee fashilisay shirarkii hore xog ku saabsan ayaan idin hayaa dawladda UK-na waxay ciidamo gaar ah u soo diraysaa Soomaaliya intaas waa qodobada ugu waaweyn wararka xilligan uu idin hayo fagaare production iminkana u diyaar garooba qodobadaasi oo faahfaahsan markale kulanti wanaagsan daawadayaal intaan warkeena gudagelin waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto YouTube-kana fura gambaleelka si uu kugu soo dhaco wararkan halkan ku soo daabacno waa maalin Talaado ah 25 May 2021 u diyaar garooba qodobadaasi oo faahfaahsan aynu ku bilownay warkeena warbixin cusub oo ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxa looga hadlay weerarkii xooganaa ee ay bishii Maarso dagaalyahanada al-shabaab ay ku qaadeen xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday xog rasmi ah oo ku saabsan weerarkaasi oo ay sheegtay inuu ahaa mid uu heerkiisu aad u sareeyay oo ay soo abaabushay kooxda shabaab warbixinta ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay al-shabaab ku daysay ilaa 337 maxaabiis ah oo ay 140 kamid ah u xirnaayeen dambiye la xiriira argagixisinimo halka 10 kamid ah isla maxaabiistaasi ay ahaayeen dumar sidoo kale warbixinta ka soo baxday qaramada midoobay waxa lagu sheegay in weerarkan lagu dilay 7 askari oo kamid ah ciidamada ammaanka isla markaana uu ku jiro taliyihii xabsiga dhexe ee Boosaaso iyo 2 askari oo ka tirsanaa ciidamada asluubta waxa kale warbixinta lagu soo qaaday weerarada ay kooxda Daacish ka fuliso deegaanada Puntland gaar ahaan weerarkii ay kooxdaasi bishii Abriil ku qaaday ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo ku sugnaa degmada Qandala ee gobolka Bari laguna dilay ilaa 2 askari baahinta warbixintan ayaa qayb ka ah warbixin 3 biloodla ah oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya taasi oo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswan uu maanta ka horjeedinayo golaha ammaanka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ku qanciyay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya in 5 xubnood uu ka qaato xubnaha gobolada waqooyi taasi oo Cabdi Xaashi ka diiday gudoomiyaha Cabdi Xaashi ayaa ka carooday in xubnaha gudiga gobolada waqooyi oo 15 ah laga siiyo 5 xubnood halka inta kalena ay qaadan lahaayeen kooxda ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Gulled Roble oo la hadlay Siciidani ayaa kulan ay xalay wada qaateen saddexda dhinac ee Cabdi Xaashi Axmed Madoobe iyo Siciidani waxa lagu go'aamiyay in shirka jaraa'id dib loo dhigo maanta oo Talaado ahna ay ka wada hadlaan sida arintaasi laga yeelayo waa markii ugu horeysay oo khilaafka shirka teendhadu banaanka u soo bixi gaaray waxaana ra'iisul wasaare Roble u muuqdaa nin aad u ilaalinaya wax kasta oo shirka fashil u keeni kara qodobka ugu adag ee ilaa iyo hadda laga gudbi laayahay ayaa ah kan gudiga gobolada waqooyi oo ay isku haystaan Cabdi Xaashi iyo sidoo kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Gulled Qadar oo haddii aan si siman loo qaybsan ay halis gelin karto si socoshada shirka Mahdi Gulled ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa ku dhagan in gudiga aan si siman loo qaybinin waxaana la arki doonaa sida ra'iisul wasaare Roble uga gudbo derbigaasi adag wararka shirka ayaan ku sii soconayaa sidee ku dhacday in si sahlan xal looga gaaro arinta gobolka Gado oo ahayd midda ugu daran ee fashilisay shirarkii hore shirkii u socday ra'iisul wasaare Roble madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa shalay galay maalintiisii saddexaad iyadoo qodobo adag laga dooday inta badan waxa la isku fahmay arrimaha shirka looga hadlayay walow shalay uu ahaa shirka maalintii ugu adkayd ee madaxda si adag uga doodeen qodobada hortabinta leh sida arinta kuraasta gobolada waqooyi oo weli aan wax heshiis ah laga gaarin kaasi oo hadda noqday qodobka ugu adag ee la isku hayo balse waxa maalmihii koowaad ee shirkaba heshiis laga gaaray arinta Gado taasi oo ahayd meesha ugu daran ee isfahamwaaga uu ka jiray shirarkii dhuusamreeb iyo waliba kii kan ka horeeyay ee madaxna farmaajo hogaaminayay ee Afisiyooni ka dhacay dawladda federaalka ayaa maamul gaar ah u magacaawday gobolka Gado iyadoo ciidan fara badan ku daabushay isla markaana la heshiisay Cabdirashiid Janan oo ciidan aad u badan ku wareejiyay garabka dawladda federaalka ee beled xaawo dawladda federaalka maamulka Jubbaland ayaa isku haystay maamulka gobolka Gado halka oo doorashada in ka badan 10 xildhibaan la filayay inay ka dhacdo waxaana dawladda ay ku adkaysatay mid muhiim u ah halka Jubbaland ay ku doodeysay
in gacan ku haynta gobolka Gedo lagu soo wareejiyo. xogo aan helnay waxay sheegayaan in madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uu sameeyay tanaasul fara badan isla markaana ra'iisul wasaare Roble uu arintan uga shaqeeyay si adag. sidoo kale xogta aan helnay ayaa intaasi ku dareysa in wax doorasho ah aan lagu qaban doonin gobolka Gedo isla markaana doorashada Jubbaland ay ka dhici doonto kaliya caasimada ku meel gaarka ah ee Kismaayo ee maamul goboleedka Jubbaland. arintan ayaa la saadaalinayaa inay fududeyn karto isfaham laga gaaro doorashooyinka kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ee ka imaanaya Jubbaland. wali wararkeena ayaa daawanaysaan madaxweynaha koonfur galbeed Cabdi Xasan Maxamed Laftagareen ayaa la sheegay inuu bixiyay amar lagu soo xirayo gudoomiyaha degmada Walaweyn iyo ku-xigeenkiisa arrimaha bulshada kadib markii uu dagaal culus ku dhexmaray degmadaasi. wararkan helnay waxay tilmaamayaan in mas'uuliyiin ka tirsan ciidamada amniga maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo maamulka gobolka lagu amray in la soo xiro mas'uuliyiintaasi. saraakiil ku sugan Balidoogle ayaa sheegay in gudoomiyaha arrimaha bulshada la geeyay Balidoogle kadibna la soo fasaxay markii uu diiday gudoomiyaha degmada in uu asna tago. sidoo kale xogta ayaa tilmaamaysa in gudoomiyaha degmada uu diiday in uu tago taasi oo keeni karta in xoog lagu soo qabto. gudoomiyaha oo halkaasi ku magacaaban muddo ka badan 6 sano ayaa haysta ciidamo beeleed hubaysan. odayaal dhaqan oo ka soo jeeda dhinacyada dagaalamay oo qaraabo ahaana isu dhow ayaa arintan ku jira waxaana la sheegay in ay isku dayayaan baajinta amarka la bixiyay ee soo qabashada ah. maalmo ka hor degmada Walaweyn oo ku taala Shabeellada Hoose waxaa ku dagaalamay ciidamo ay kala hogaaminayaan 2 gudoomiye waxaana dagaalkaasi ku dhintay ku dhawaad 10 qof oo shacab u badan. dagaalka ayaa salka ku hayay maamulka isbaara lacag badan ay ka soo xarooto. dowladda UK ayaa ciidamo gaar ah u soo diraysa Soomaaliya si ay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa AMISOM uga taageeraan la dagaalanka argagixisada. wargeyska Express ee ka soo baxa London ayaa baahiyay in UK ay u diri doonto Soomaaliya 250 ka tirsan ciidanka qaaska ah ee UK kuwaas oo loo daabuli doono gudaha dalka 12 bilood ee soo socda. wargeyska ayaa sheegay in arintan ay daba socoto aasqaska guutada howlgalka qaaska ah ee The Special Operation Brigade oo la howlgeliyay dhowr bilood ka hor. taliyii hore ee ciidanka cirka ee qaaska UK ee Special Air Service General Mark Carleton Smith oo haatan madax ka ah ciidanka Britain ayaa iftiimiyay qorshaha UK ee ay ciidamadaasi ugu soo dirayso bariga Afrika. General Mark ayaa hoosta ka xariiqay inuu doonayo in 12 bilood ee soo socda uu ku dhiso guutada koowaad ee ciidanka Rangeriska isaga oo ka gaabsaday muddada ay ciidamadaasi ku sugnaan doonaan gobolka. Express oo soo xiganaysa ilo wareedi ayaa sheegay in ciidankaasi saldhigoodu noqon doono Soomaaliya si ay ciidanka qaaska ugu tababaraan xeeladaha dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. wargeyska ayaa xogtan uu baahiyay ku xusay in ciidamada qaaska ah ay bedeli doonaan kuwii Mareykanka ee tababari jiray ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. ciidamada dowladda federaalka oo kaalmo ka helaya kuwa AMISOM ayaa dagaal adag kula jira Al-Shabaab waxaana la filayaa in haddii UK si toos ugu biirto ay sare u qaadayso howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. ugu dambeynna faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dil xalay ganacsada Soomaali ah lagu geystay xaafadda Mayfair oo ka tirsan magaalada Johannesburg ee wadanka Koonfur Afrika oo Soomaali badan ay ku nooshahay. wararka ayaa sheegaya in dilkaasi oo loo geystay marxuum Cabdi Gigis ay fulisay xaaskiisa oo Koonfur Afrikaana taasi oo toogasho ku dishay xil uu ku sugnaa hooygiisa. haweeneyda dilka ka dambeysay oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada ammaanka ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay dilka ku geysatay bistoolad uu lahaa marxuumka kadibna ay wacday booliska oo ay ugu dambeyn isku dhiibtay. laamaha ammaanka ee Koonfur Afrika ayaa haatan wada baaritaano dheeraada oo ku aadan sababta ka dambeysay dilka ay haweeneydaasi u geysatay saygeeda. dhacdadan ayaa la yaab ku noqotay Soomaalida ku nool dalkaasi Koonfur Afrika. maalmihii la soo dhaafay waxaa dalka Koonfur Afrika ku soo badanayay weerarada ka dhanka ah Soomaalida ku dhaqan dalkaasi iyaga oo la kulma dil dhaawac iyo dhac. inta badan kooxo burcad Afrikaan ah ayaa ka dambeeya weerarada lagu hayo Soomaalida waxaana aad u yar wax ka qabashada dawladda ee ku aadan dhibaatooyinkaasi. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkii aad ka daawanayseen Fagaare Production oo ku maasantihiin daawashada warkeena ee nabadgelyo.